saaxiibayaal habeen wanaagsan meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeena habeennimo ee caawa waxaanu barnaamijkan idinkugu haynaa dhacdooyin waaweyn oo kala duwan oo waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump oo xaaladiisa caafimaad laga dayrinayo ayaa hadda amnigiisu aad looga walwalaya madaxweynaha ayaa ka soo baxay aqalka cad ee dalka Mareykanka maalmahan waxa uu ku sugan yahay xeebaha Palm Beach la yiraahdo ee gobolka Florida ee dalka Mareykanka shalay diyaarado ama hal diyaarad oo rayd ah oo aan la aqoonin ayaa waxa ay soo gashay hawada meeshii madaxweynaha uu deganaa meelaha madaxweynaha uu degan yahayna had iyo jeer hawada waa la xiraa meel waxa laga dhigaa diyaaraduhu ay ka caagan yihiin meeshii bay soo gashay diyaaradihii F-22 iyo F-16 ayaa hawada galay madaxweynihii amnigiisa aad baa loogu baqayaa waxaana xitaa meelaha qaar lagu sheegayay madaxweynaha in la soo weeraray maadaama gurigiisii iyo meeshii uu ku noolaa diyaaradaasi ay dul timid diyaaradiina waa la baarayaa haddii Russia iyo Shiinaha iyo Iran arrimahaasi ay ku lug leeyihiin wixii ku soo kordhay macluumaadkaasi ayaanu idin haynaa waxaan kaloo eegi doonaa dawladii Saudi Arabia waxay leedahay halka nabadda wadanka Lubnaan iyo in Israel ay joojiso duqeymaha wadanka Lubnaan waxa uu ku xiran yahay in Hezbollah hubka laga qaado oo ay rayd noqdaan arintaasi aad baa loogu qaxweynayaa caawa waa laga hadlayaa oo waxa la leeyahay Sacuudigu haddii uu ka mid ahaa safiiradii wadamada reer galbeedka ee yimid xuduudda Israel iyo sidoo kale Lubnaan oo ay halka kormeerayeen ileen waxay u yimaadeenba sidii hubka looga qaadi lahaa Hezbollah arintaas waanu idin haynaa waxaan kaloo eegi doonaa 29 xabo oo diyaaradaha dawladda wadanka Ukraine ciidankoodu ay leeyihiin ayaa xalay waxa lagu soo riday gudaha gobollo wadanka Russia ku yaala sida ayuu howlgalkaas u dhacay Russia maxaa loo soo weeraray generaalkii la dilay qaraxa Moscow ka dhacay isagana war cusub ayaanu idinkaga haynaa waxaan kaloo eegi doonaa laba askari oo calooshad u shaqaystayaal ah oo Mareykanka u dhashay ayaa gudaha wadanka Ukraine lagu dilay bishan December warkii hadda ayuu banaanka soo baxay waa laba askari oo calooshad u shaqaystayaal ah oo Mareykanka u dhashay sidoo kalena waxaanu eegi doonaa askartii Mareykanka ee Syria lagu dilay iyo arrimahan siday isula xiriiraan waxaan kaloo idin haynaa ciidamadii dawladda wadanka Ukraine hadda saldhigyadoodii ayay ka cararayaan oo dhufaysidii way ka soo baxayaan waxaana weeye inaysan mushaar qaadanin bilihii la soo dhaafay dabcan arintaasi Russia ayaa guulo ka gaaraysa oo meesha ay ka baxaan bal la wareegaysa fadeexadaasi hadda dhabarka u saaran dawladda wadanka Ukraine ayaanu idin haynaa Ukraine waxaad ogtihiin in dagaalkan la geliyay oo la yiri Russia iska celi anaga hub iyo dhaqaale ku siinayna ugu dambeyntiina Mareykanka oo hubkii uu ka joojiyay Yurubna ay jiri anaga inta wixii ka sii dambeeya dhaqaale kuma sii bixinayna dagaalkaasi arrimahaas waanu idin haynaa dabcan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir waa 23 December waxaanu barnaamijkeena ku bilaabaynaa ninkii madaxweyne Donald Trump ahaa oo xaaladiisa caafimaad waayadanba laga dayrinayay isla markaana calaamadaha xanuunkii uu qabay laga dareemayo gacmaha iyo lugihiisa ayaa markan xaaladihiisa amniga aad looga dayrinaya maxaa soo kordhay Trump aqalka cad ee Mareykanka waa uu ka soo baxay toddobaadkan waxa uu tagay xeebaha Palm Beach la yiraahdo ee gobolka Florida ee wadanka Mareykanka halkaas ayuu maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa December marka la gaarana sidan oo kale ayuu uga soo baxaa aqalka cad meelahan oo kale xeebaha ayuu yimaadaa halkaas ayuu dabcan ciyaarihiisa golofka iyo wuxuu ku ciyaaraa kulamadana halkaas ayuu dabcan uu ku sameeyaa xitaa ninka la yiraahdo Netanyahu ayaa u soo socda Mareykanka halkan Palm Beach iyo Florida ayay ku kulmayaan marka waxa hadda soo baxaya in madaxweynuhu shalay la weeraray meeshii uu deganaa dabcan Florida caadiyan Trump iyo madaxweynayaasha Mareykanka magaalooyinka ay degayaan hawadana waa laga xiraa dhulkana waa laga xiraa airspace-ka dabcan meel walba oo kamid ah waa la xiraa diyaarado ciidan iyo sidoo kale kuwo rayid intuba looma ogola ciidamada gaarka ah ee Secret Service-ka loo yaqaano ee madaxda Mareykanka waardiyeeya ayaa ammaanka la wareega diyaarada casri ah haystaan halkaas waa la xiraa marka maxaa dhacay diyaaradaha waa diyaaradaha dagaalka ee ciidanka cirka ee Mareykanka ayaa si degdeg ah 21 bishan December oo maalin dhaweyd ahayd hawada ka celiyay oo dabcan la dagaalamay oo ka saaray hawada diyaarad rayd ahayd oo soo gashay hawada meesha uu deganaa ama uu ku yaalay guriga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo dabcan si ku meel gaar ah hadda u jooga Palm Beach Florida haddaan ka soo hadalnay xaaladaas marka waxay keentay walwal weyn oo ciidamadii durba inay kacaan oo diyaaradihii hawada la geliyo diyaaradii raydka ahayd meeshaas laga celiyo marka
ciidanka militariga iyo kuwa cirka waxay yiraahdeen wax dabcan dhacda halkaasi kama dhicin xaaladii si nabdoon ayaa loo xaliyay haddaba in guriga madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo aan aqalka cad ahayn oo dabcan xeebaha ammaankooda aadka loo waardiyeeyay ee Florida ah cirka iyo dhulka ka xiran in diyaarad rayid ah ay soo gasho waxa la leeyahay arintaasi si dabcan kam ah oo maysan dhicin waa wax laga soo shaqeeyay baaritaan baa hadda socda xaaladii si nabadgelyo ah ayaa loo dabcan loo xakameeyay diyaaradaha F-22 iyo F-16 ayaa hawada ka celiyay diyaaradaas oo meesha ka saaray marka waxa la leeyahay nidaamka duulista hawada Mareykanka markaad fiiriso feejignaanta iyo safety-ga diyaaradaha ku duulaya Mareykanka markaad fiiriso in diyaarad rayid ah ay ku soo qaldanto hawada xiran guriga Donald Trump ku beegan dabcan waxa iska dhacay ma ahan marka FBI-dii Mareykankii iyo sidoo kale ciidamada kala duwan ee Mareykanka ayaa baaritaan degdeg ah hadda wada waxa la baarayaa bal arintan inay dabcan ay ku lug leeyihiin dawlado shisheeye iyo sidoo kale in kale dhacdooyin sidan oo kale hore mu dhaceen dabcan hore sidan oo kale ah diyaarado way soo galeen hawada meel madaxweynaha uu degan yahay gurigiisa ama xeebaha laakiin ma ahan aqalka cad ee Mareykanka tusaale aan ku siiyo oo kooban oo dhacdooyin hore u soo dhacay ku saabsan haddii aad fiiriso bishii December ee sanadkan waa bishii September ee sanadkan meel u dhow Alaska ayaa diyaarad ay timid halkaasna dabcan Trump iyo waxa ku shirayay iyo sidoo kale waxa ku shirayay madaxweyne kale oo Mareykanka yimid dabcan waxa loo badinayaa madaxweynihii Russia Vladimir Putin uu ahaa Alaska marka iyada oo hawada iyo dhulka ay ka xiran tahay oo madaxweynayaal halka ay joogaan ayaa diyaarad dabcan hawadii xirneed soo gashay diyaaradiina ciidankii ayaa dib u celiyay taa oo kale waxay dhacday isla sanadkan bay dhacday Washington DC meel diyaaraduhu ay ka xiran yihiin ayaa waxa soo galay diyaarad kale iyaduna dabcan waa laga hortagay marka arintan hadda dhacday 22 bishan dhacday dabcan hadda waa 23 shalayna waa 22 marka dorad bay ahayd dhacdadan waxay dhacday ciidanka hadlay waxay yiraahdeen waxaan ururinaynaa bay yiraahdeen macluumaadka arintan ku saabsan diyaaradaha F-16 iyo F-22 xilligay kaceen wixii laga hortagay diyaaradu haddii ay ku soo socotay guriga madaxweynaha meesha ku beegan haddii ay dabcan jiha kale u socotay waxa la hadlayaa baaliri immigrationkii waxa la hadlayaa cid kasta oo arintan ay qusaysa marka ninkii Trump ahaa intuu Soomaalida ku mashquulsanaa Ilhaan Cumar uu wax ka sheegayay Soomaalida uu lahaa waa dabcan qashin uu dabcan wax kasta oo xun Soomaalida uu ku tilmaamayay isagii ayaa xaaladiisii caafimaadna laga deerinayaa haddana dabcan amnigiisii loo baqaya waxaas ogtahay meel u dhow aqalka cad ee Mareykanka xilli Trump uu ku sugnaa in toogasho ay ku dhacday laba askarina halkaas mid lagu dilay midna lagu dhaawacay sidaas la mid ah jaamacadda Brown University weerar uu ka dhacay weerar kala duwan Trump agtiisa ay ka dhacayeen isaga laftirkiisa dilal uu ka badbaaday marka ninkii Trump ahaa cudurkii iyo sidoo kale xanuunadii waxa ugu kordhay in hadda meel kasta oo uu joogo ama hawada diyaaradaha soo gasho oo loo baqo amnigiisa ama sidoo kale meel u dhow guriga ama aqalka cad oo ku sugan yahay toogashaha ka dhacdo askartiisii halalaayo intaasoo dhan dabcan Trump ay ku fooraraan marka Soomaalidii hadda waxay leeyihiin ninkii Trump ahaa waa kaay isaga ayaa loo baqaya amnigiisa bal aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag amni darada Trump uu hadda ka baqayo iyo sidoo kale in xaaladihiisa caafimaadka laga deyrinayo iyo sidoo kale dabcan Trump weerarkan iyo aflagaadadan Soomaalida ku hayo waanu ka gudbaynaa qodobada kale ayaan u galaynaa nimankii Sacuudiga ahaa iyo boqortooyada maalmo dhaweyd safiirka Sacuudiga iyo saraakiil sarsare ayaa waxay tageen xuduudda Lubnaan iyo sidoo kale Israa'iil waxay yiraahdeen anagu halkan waxaan u nimid inaanu qiimeeyno nidaamka hubka looga dhigayo Xisbullah haddii meel wanaagsan uu marayo haddii dabcan nidaamkaas uusan si fiican u soconin baanu halka u tagnay hadda marka warka la soo baxay waxa weeye Sacuudiga waxay leeyihiin Israa'iil waxay joojin kartaa duqeynta Lubnaan ay ku hayso marka Xisbullah hubka laga dhigo dadkii reer Xisbullah way kaceen waxay yiraahdeen iyo Lubnaaniintu waxay yiraahdeen nimankii Sacuudiga ahaa oo aan ka filaynay inayna taageeraan garab istaagaan oo ay Israa'iil ka soo horjeestaan ayaaba hadda ku baaqaya inaanu hub ka dhigno oo aan rayd noqono wadankeenana Israa'iil ay qaadato dowladda Lubnaan ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu waaba la gartayba Israa'iil iyo Mareykanka ayaa warqado inay u soo dhiibeen waxay yiraahdeen hubka ka dhigan nimankan la dagaalama hub iyo dhaqaale anaga idin siinayna taasoo macnaheedu uu yahay in Lubnaaniintii dhexdooda la isku horkeenayo oo ay dagaalamayaan marka
hadda marka waxaa cusub in sacuudigii ay lubnaaniintii ay ku kaceen oo lubnaaniintii ayaa kacaya xitaa banaanbaxyo ayaa la qabanqaabinaya oo looga soo horjeedo hadalka sacuudigii ka soo baxay ee ah nimankan xisbullah hubka ha laga dhigo si israa'iil ay u joojiso dagaalka. hadalkan sacuudiga ka soo baxay mid la mid ah ayaa maraykanka uu yidhi toddobaadkii lasoo dhaafay. waxa uu yidhi haddii inta bishan December aysan dhammaanin dowladda Lubnaan ay ku guuleysan weydo inay hubka ka dhigto kooxda xisbullah, Israa'iil waxay sii wadi doontaa, waanu fasixi doonaa, waxayna sii wadi doontaa duqeymaha Lubnaan ay ku hayso. taas waa hanjabaad cad ahayd halkii laga filayay dalalkii Carbeed inay yiraahdaan dalkan waa dal Carbeed looma hanjabi karo, isaga ayaa danihiisa gaarka yaqaan intii la dhihi lahaa. dalalkaas ayaaba qaarkood hadda waxay leeyihiin Maraykanku wuxuu sheegayo waa sax. Israa'iil haddii aad doonaysaan inay duqeynta idinka joojiso waa in aad hubka ka dhigtaan kooxda xisbullah. arrintaas oo dabcan khilaaf iyo dagaal xoogan hadda dalka Lubnaan ka abuuraysa. aragtidaada qaybta hoose qodobkaasi ku aadan nagula wadaag. qaybaha kale ee barnaamijka ayaanu markan gudaha aynu u sii gelaynaa. daawadayaal xalay maalin ama habeen wanaagsan umaysan ahayn ciidamada difaaca dowladda wadanka Ukraine xalay in ka badan 30 diyaaradood ayaa waxay ku soo weerartay gobollo wadanka Russia ka tirsan oo xuduudda Ukraine iyo Russia ku yaala. haddaba ciidanka cirka iyo nidaamka difaaca hawada ee wadanka Russia ayaa dhulka soo dhigay oo burburiyay 29 diyaaradood oo nooca droonka ahaa kuwaas oo gobolada wadanka Russia lagu soo weeraray. wasaaradda difaaca ee wadanka Russia ayaa warkaas sheegtay. waxay tiri intii saacadu ay ku beegneed xalay 11 PM waa waqtiga 5 saac oo habeenimo gudaha magaalada Moscow, taariikhduna ay ku beegneed bay yiraahdeen December 22 ilaa saaka oo dabcan 7 subaxnimo oo taariikhda ay ku beegan tahay 23 bisha December. ciidankeena difaaca hawada ee wadanka Russia ayaa qabtay burburiyay 29 xabo oo diyaaradahan loo yaqaan droonka. 14 xabo oo kamid ah waxaa lagu burburiyay gobolka Rostov la yiraahdo. 7 xabo waxay yiraahdeen waxaa lagu burburiyay gobolka Stavropol la yiraahdo. 3 waxaa lagu burburiyay bay yiraahdeen gobolka Belgorod, halka sidoo kale Republic of Kiliyookiya la yiraahdo 1 xabo lagu burburiyay. waxa kale oo ay sheegeen inta kalena gobollo kale oo Russia oo Crimea ay kamid tahay gobolka hadda Ukraine ka tirsan laakiin Russia uu qaatay iyo gobolka Kursk region la yiraahdo ayaa dabcan lagu qabtay bay yiraahdeen. marka nimankan ciidanka cirka ee wadanka Ukraine dabcan weerarkii way soo qaadeen. waxay doonayeen in meelo kamid ah wadanka Russia ay weeraraan laakiin diyaaradahoodii dhanba dhulka ayaa la soo dhigay. maxaa ka horreeyay marka? waxaa ka horreeyay jab dabcan culus oo Russia iyaguna gaaray. jabka Russia gaaray waxa uu ahaa in generaal sare oo ka tirsan ciidanka militariga ee dowladda wadanka Russia oo dabcan xil muhiim ah ayaa laga dilay wadanka Russia. xitaa sida loo dilay ma ahayn dabcan xabad lagu dhuftay ama shaqool ma ahayn. qarax ayaa waxa uu ka dhacay bartamaha caasimadda wadanka Russia ee Moscow. qaraxaasina waxaa lagu dilay ninkan generaalka ah ee lieutenant general ah magaciisana lagu sheegay Fanal, kaasoo dabcan madax ka ahaa ciidamada qaybta howlgallada iyo tababarka militariga dowladda wadanka Russia. marka weerarkaasi ama ninkaas inuu nin weyn ahaa waxaad ku dareemi kartaa madaxweynaha wadanka Russia Vladimir Putin ayaa ka hadlay generaalkaasi la dilay. waxa uu yiri generaalkaasi nin qiimo badan ku leh ciidamada ayuu ahaa, dabcan xilal muhiim ayuu dowladda ka soo qabtay, haddana xil weyn buu hayay buu yiri. sidoo kale haweeney u hadashay guddiga baarista ee Russia oo magaceeda la yiraahdo Petronokovo ayaa dowladda u sheegtay warbaahinteeda in qaraxaasi uu isaga oo kaliya uu ku dhintay. qaraxaasina uu ahaa dabcan qarax weyn. waxa uu yiri ama ay jira afayeenadaasi generaalkan Fanal la yiraahdo 11 Maaj ayuu dhashay 1969. waxa uu ahaa bay jireen nin ka soo qalin jabiyay taliska waa iskuulka taliska ee taangiyada sare ee dowladda. sidoo kale waxay jireen military academy ayuu ka soo baxay. gawaarida culculus iyo ciidanka sida loo hogaamiyo bartay military academy ayuu dabcan ka soo baxay oo general staff ah. ciidanku dabcan nin door weyn ku lahaa buu ahaa. marka daawada in bartamaha wadanka Russia caasimadeeda Moscow qarax uu ka dhaco generaal sare oo sidaa u weynna Russia laga dilo waxay dabcan tahay calaamad weyn oo muujinaysa in Russia dhexdeedii Ukrainiinta soo galeen. marka waxa la isweydiinayaa weerarkaasi ma Ukraine oo kaliya awood u leh inay samayso? maya, waxaa la leeyahay dowladaha galbeedka ee ku sugan gudaha wadanka Russia wadanka Ukraine
ayaa arintan ka dambeeyay oo dabcan gacan weyn ah ku lahaa. bal aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag in qaraxaasi ay kaliya ka dambeyn karto Ukraine iyo in Mareykanka iyo sidoo kale xulafada kale ay ka dambeyn karto. sidoo kale qaybaha kale barnaamijka inuu eegno laba askari oo Mareykan ah oo calooshad u shaqaystayaal ah oo magacyadoodu ay kala yihiin Ty Wingate Jones iyo Prine ayaa waxaa lagu dilay gudaha wadanka Ukraine horaantii bishan December. majalada la yiraahdo Newsweek magazine ayaa arintaasi qoraysa. sida laga soo xiganaya warbixinada qoysaska labadan askari ee geeriyooday ee kala ah Jones iyo Sajral ayaa dabcan kamid ahaa ciidamada caalamiga ah ee dabcan wadanka Ukraine ee dhinaca military intelligence ka sameynaya. waxay dabcan ku sugnaayeen gudaha wadanka Ukraine, waxay caawinayeen ciidanka Ukraine. wakaladan ama wargeyskan Newsweek la yiraahdo waxa uu leeyahay tirada muwaadiniinta Mareykanka ah ee dabcan ku baxaya ama lagu dilay dagaalka wadanka Ukraine ayaa sare u martay oo dabcan kordhaysa. marka in laba askari calooshad u shaqaystayaal ah Mareykanka u dhashay Ukraine caawinayay ciidankooda Ukraine ku sugnaa in gudaha wadanka Ukraine lagu dilo dabcan waxay muujinaysaa sida markan dadkii ama ciidamadii ajaanibta ahaa ee calooshad u shaqaystayaasha ahaa ee Ukraine joogay loo beegsanay. marka dabcan waxaa soo baxaya marka generaalkii Ukraine laga dilay iyo Russia laga dilay ee qaraxa magaalada Moscow lagu dilay inay aargudasho u ahayd labadan askari ee calooshad u shaqaystayaasha ahaa ee iyaguna lagu dilay wadanka Ukraine. marka Ukraine iyo Mareykankii waa Russia iyo Mareykankii ayaa waxa la leeyahay ciyaar xoogan ayaa ka dhex jirta. waa tahay bal aragtidaada qaybta hoose nagula wadaag ugu dambeyntii aynu eegno. daawadayaal ceebba hadda waxay dul hoganaysaa oo ay dabcan guryaha u buuxdaa Ukraine. ciidamadii militariga dowladda wadanka Ukraine ayaa waxaa hadda la soo warinayaa in ay isaga tagayaan jagooyinkoodii iyo sidoo kale dhufaysadii ay ka soo baxayaan iyagoo mushaar la'aan iyo quus ka taagan suurtagalnimada in la hagaajiyo xaaladooda dhaqaalaha. oo waxa la leeyahay askartii ugu badneed ee dhufaysyada ku jiray ee difaacyada ku jiray ee Ukraine difaacyadii way ka soo baxayaan, way soo banaynayaan. kuwii jagooyinka hayay ee ciidanka ku jiray iyaguna jagooyinkii way iska tuurayaan oo waxay ka baxayaan ciidamadii dalalka Yurub bay iska aadayaan, kuwana Mareykan ay iska aadayaan oo mushaar la'aan xoogan ayaa jirta. oo mushaar la'aantan waxa ay dabcan ka dhalatay in Mareykankii uu joojiyay dhaqaalihii badnaa ee wadankan Ukraine ciidankiisu uu siin jiray hubkiina wuu ka joojiyay. laakiin xilligii Joe Biden billion dollar ayaa la siinayay wadanka Ukraine. waa tii madaxweynaha Ukraine iyo sidoo kale Trump ay dagaalameen horaantii sanadkan. wixii markaa ka dambeeyay Trump wuxuu yiri annaga hub bilaash ah oo aan Ukraine siinayno ma jirto. Yurub lacagta ha noo keento oo hubka naga iibsato kadibna hubkana laga iibiyay wadanka Ukraine hal la siiyo Bosramir. arintaas marka Yurubna waxay tiri miyaad naga aqli badan tahay marka aan lacagteena annaga ku siinayno hubka ka iibsanayno hubkana Ukraine aynu siinayno. Ukraine labadeenuba waa inaanu taageernaa annaguna ana bixinaa dhaqaalaha iyo mushaaraadka adna aad bixisaa hubka la siinaya haddii kalena Ukraine ha burburto. marka yaydan ugu jirtaa Mareykan iyo Trump baydan ugu jirtaa maxaa yeelay Ukraine waxay ku taalaa xuduudda Yurub iyo sidoo kale Russia. marka Yurub marka way ku qasban tahay inay bixiso mushaaraadka iyo sidoo kale hubka wadanka Ukraine maadaama Trump uu dabcan diidaya. marka xalkii halka buu marayaa ciidamadii mushaar la'aan bay ka baqayaan ama ay ka cabanayaan Russiana waa uu ka faa'iideysanayaa oo goobihii muhiimka ahaa waa uu la wareegayaa. aad iyo aad baad u mahadsantihiin qaybta hoose aragtidaada nagula wadaag ee qodobkaasi ku aadan. ugu dambeyntii daawadayaal toddobaadkan magaalada Muqdisho doorasho ayaa ka dhacaysa. waa doorasho qof iyo cod ah, waa tii golaha deegaanka, waa tii ugu horeysay muddo 50 sano ah. laakiin cabsi xoogan ayaa jirta, mucaaradkii way ka soo horjeedaan, dagaal baa laga cabsanayaa. ma suuragal baa daawade in dagaalkii xilligii farmaajo ee doorashada dhacay mid lamid ah in magaalada Muqdisho ay ka dhici karto mise waxay kula tahay arintaas waa laga baaqsan karaa? qaybta hoose aragtidaada qodobkaasi ku aadan nagula wadaag. habeen wanaagsan ayaanu ku leenahay meel kastoo aad joogtaan.